marmarka qaarkood waxa aynu dareynaa guuldarro dhammaad inay tahay fursadda aynu haysanno waxa aynu doorbidnaa inaynu isdhiibno waayo waxa ay noola muuqataa inaynu nahay dad nasiib xun dad aanay noloshu doonaynin haddaba sidaas ma ahan xaqiiqadu sideedaba marka aan ku leeyahay xaqiiqo micnaheedu waa wax dhacay oo run ah lana samayn karo marka laga tago calamka marmarsiyaha iyo ku dulmeeraysiga maanta waxaanu doorbidnay haddii aanu nahay baxda Audiosom in aan kuu soo tabino sheeko cajiib ah nacajab gelisay annaga nana dhiirigelisay waxna aan hubaa haddii aynu hoos u sii daadegno oo u sheegno sheekada tan in aynu wax badan ka bedeli karno nolosheena hadda ka hor ma maqashay ninka lagu naanayso The Golden Voice dabcan suuragal inay tahay haa ma aadba maqashay cod xayeysiis ama cod kale oo isagu u duubay haddii aad rabto ha maqlin balse isagu waa nin aad looga yaqaano gudaha Mareykanka iyo gabi ahaanba dalalka Yurub iyo caalamka inuu yahay wariye iyo cod soo saare waxa ka duwan ee magaciisa kor u qaaday taariikhdana loogu xusay maxay tahay dhabtii waa sheeko dhiirigelin inoogu filan kusoo dhawaada channelka Audiosom fadlan guji subscribe kadib dooro gambaleelka si aad u hesho muuqaalada aan soo baahino kolka ay cusub yihiin aad ayaad u mahadsan tahay in badan waxaanu sidoo kale u mahadcelinaynaa saaxiibada Soomaaliyeed ee ku xiran channelka in ka badan 10,600 oo qof aad ayaan ugu faraxsanahay in uu gaaro channelku tiradan in ka badan intaasina insha Allah waan idinka rajaynaynaa waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa muddo usbuuciya oo aanan soo sameyn wax muuqaal ah dib ayaan hadda u bilownay shaqada halkan aynu ka wada xiriirno mahadsanideen waxa aan leeyahay hibo codeed oo rabbaani ah waxaan horey u ahaa warfidiyeen idaacadeed waxa aan la kulmay dhibaatooyin badan oo nolosha ah fadlan ma ka helayaa wax caawimaad ah aad ayaan ku qadarin doonaa mahadsanid in badan ilaahay ha ku xifdiyo waa qoraal kartoon uu ku qoray kaasi oo in badan noloshiisa wax ka bedelay Ted Williams waxa uu ku dhashay New York City 1957 waxa uu ahaa nin bilowgii noloshiisa ahaa mid ku nool nolol iska caadi ah waxa uu ka shaqayn jiray idaacad maxalli ah oo dalkaasi ku taala sanadii 1994 ayuu bilaabay droogada isticmaalka maandooriyaha si xad dhaaf ah waxa uu hoos uga soo daadegay muddo bilo ah jaranjarta uu ka joogay nolosha ilaa uu naftiisa ka dhexlay bartanka darbijiifka New York maalinka uu noqonayay darbijiifka waxa uu ahaa 33 jir muddo 20 sano ah waxa uu ku bixi jiray nolol adag had waxa uu saaxiib la noqday maandooriye waxa ay u muuqatay noloshiisa in uu dayacay fursadii uu haystay oo dhab ahaantii qof kasta ay la ahayd 20 sano kadib waxa uu soo taabtay gidaarka dhibaato uma laabna dhaxan baraf iyo dabayl dib kalama maqna waxa uu ku tashaday in uu wax ka bedelo naftiisa ma ahan mid haysta fursadda aad haysato adigu maanta magac kuma dhex laha bulshada uu la nool yahay cidi wax ku falimayso ma haysto qof garab istaaga ma lahan aqoon xadka laga rabo ma jiro cid aaminsan maadaama uu yahay qof ay drooga dilootay lama helayo qof hoysiya si uu isbedel u sameeyo waayo isaga oo dhan waa qof bulshada dhankeeda ka dhintay balse qof kasta oo dunida jooga waxa dhab ah in uu sameyn karo waxa uu u baahan yahay laakiin waa markii uu naftiisa ka dhex sameeyo isbedel Ted Williams waxa uu sameeyay dadaal waxa uu doortay in uu daydaydo fursadda uu noloshiisa berito ku bedeli lahaa waxa uu hilmaamay maadaama uu yahay darbijiif gaajeysan inuu raadsado waxa uu cuno ama uu dadka lacag u weydiisto waxa uu ku qortay kartoon yar qoraal waxa uu tusay qof kasta oo isaga ka hor yimaada arag waxa uu sameystay albaab ay fursaddu ku soo gargaraacdo waxa uu socdo waxa uu hadba qof la kulmo waxa uu hadba qof niyad jab kala kulmo ugu dambeyn waxa uu haleelay dabadii uu qaadi lahaa isbedelka uu rajeynayay waxa uu la kulmay nin cameraman ah oo shaqo u socda ninkaasi ayaa caawiyay muuqaal waraysi ah oo ka duubay deedna uu YouTube-ka ku baahiyay ka gadaal waxa uu noqday qof ay isweydiiyaan dadku waxa uu maalmo kadib helay shaqo sida uu rabay ayuu isbedelka uu rajeynayay u dhacay 2015 waxa uu sameeyay jamiicad uu sameeyay darbijiifka hoy haddaba adigu walaal maxaa diiday si walba oo ay ahaato noloshaadu in aad samaysid isbedelka aad rabtid u hurtid wax kasta gaarista halka aad rabtid qof kasta oo ay xustay taariikhdu waa qof ka dhabeeyay sameynta waxa uu go'aansaday laba ma kulanto iyo ayaan leeyahay iyo caqabado ayaa iga hortaagan gaaristeeda samee wax kasta si aad u noqoto qofka aad rabtid casharka inoogu jidha qisada Ted Williams waxa uu yahay si walba oo ay ahaato carqaladda ku hortaagan si walba uu ahaado xaalkaagu goob walba oo aad ku sugan tahay iyo da' walba oo aad tahay waxaad ka dhaa oo aad awoodaa inaad samaysid isbedel waxaad ka dhaa oo aad awoodaa in aad dib u soo celisid noloshaada waxaad ka dhaa oo aad awoodaa in aad muujiso qofka aad tahay inaad bartid dadka cidda aad tahay inaad tusisid kan ku yasay
iyo kan kaa sarreeya ee aan danaynin shakhsiyadaada qofka aad tahay. waan ogahay ilaahayna waa uu arkaa in aad samayn kardho waxa uu sameeyay qof kasta oo dunida tan guulka. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deena ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh. mahadsan.